السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka la barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha caalamka maanta waxaan ka hadli doonaa shan qodob oo muhiim u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha wadan ama ummado ay leedahay lambar kow human capital development wax loo yaqaano horumarinta raasmaalka aadamaha in dadka bani aadamka la maalgashto maskaxdiisa iyo jirkiisa sababtoo ah in la helo dad wax bartay xirfad leh caafimaad qaba waa laf dhabarta dhaqaalaha wax soo saar ee wadan uu ku horumari karo lambar labo development of the economic infrastructure in kaabayaasha dhaqaalaha ee la horumariyo iyaduna muhiim weeye sababtoo ah kaabayaasha oo la isku haleyn karo sida wadooyinka dekedaha eerboorada inta badan waxay fududeynaysaa ganacsiga dhaqdhaqaaqa isku xirka gobollada iyo weliba dadka inay isku socdaan ayay fududeynaysaa waxayna soo jiidanaysaa maalgashiga caalamiga ah marka wadankaasi ama dhaqaalaha ama ganacsigaasi inta badan uu horumaraa lambar saddex meesha aan ka dhimanay waa political and economic stability wax loo yaqaano xasiloonida siyaasadeed iyo dhaqaale xasiloonida maamul iyo weliba ku dhaqanka sharciga ayaa dhiirigelinaysa maalgashiga caalamiga ah iyo weliba dhaqdhaqaaqa ganacsiga wadamada leh jawiga siyaasadeed ee degan inta badan musuqmaasuqoodu uu hooseeyo hal abuurkooda ummadooda la imaanayo inta badan horumar baa lagu tilmaamaa laakiin soomaalidana inta badan hadda sharciga uma hogaansano lambar afar good economic policy wax loo yaqaano siyaasadda dhaqaale oo wanaagsan xasiloonida maaliyadeed midda lacageed sicir bararka oo hooseeyo deynta dadweynaha oo la xakameeyo ayaa lagama maarmaan u ah sidoo kale kobaca dhaqaalaha ee wadan uu leeyahay lambar shan waa hal abuurka iyo weliba teknolojiyadda innovation and technology wax loo yaqaano maanta teknolojiyadda ayaa door wanaagsan ka qaadanaysa horumarka ganacsiga sababtoo ah adigoo muqdisho jooga ayaa waxaa alaab ka iibin karta maanta qof China ku nool mase America ku nool mase ku nool ishaga Afrikada kale ayaa dukaanka adoo jooga wax ka iibin karta online marka muhiim buu yahay horumarkaas sidoo kale beeraha aan ka soo hadalnay qodobadii hore barnaamijkeena hore in roobka aan la sugin teknolojiyadda iyadoo la adeegsanayo beerihii ma bil kasta mase labadii bilood hal mar wax laga soo saaro wadankaasi horumar buu ku talaabsanaya marka horumarinta teknolojiyadda ayaa inta badan dhiirigelinaysa mise muhiim u tahay ganacsiga iyo dhaqaalaha wadan uu leeyahay marka shantan tiir waxay abuurayaan qaab dhismeed xasilooni horumarsan oo u ogolaanaya wadanka inuu si buuxda uga faa'iideysto awoodiisa kob ah hal abuurnimo iyo weliba barwaaqo sida wada jirka ah waxay xaqiijinayaan faa'iidooyinka mustaqbalka labadaba horumar dhaqaale inuu la imaan karaan wadankaas ummadiisa iyo dowladiisa marka shanta qodob waa qodobo kale way jiraan oo dhanka kobaca dhaqaalaha marka laga hadlayo laakiin shanta qodob inta